horta qofka bani aadanka on kulle haddii asiga wax la iska weydiiyo si uun is amaanaya marka haddii amaanta iska badiyo aniga wax badan ma soo baranin oo hadda ma ku dhahayo jaamacad fulana ka soo baxay laakiin iskool dugsi quraan iyo iskool hoose oo soo dhigtay kadibna anigu ganacsataan ahaa taariikhdayda anoo yar ilaa iyo inta hadda aan guddoomiye baarlamaanka noqonayo ganacsataan ahaa waxaa la yiraahdaa Shariif Xasan wuxuu mas'uul ka ahaa go'aankii baarlamaanka ku-meel gaarka uu go'aamiyey oo amxaaradu ay dalka ku soo gashay baarlamaanku ma go'aaminin ciidamada Itoobiya dalka inay soo galaan ciidamada Itoobiya sharci la'aan ay ku soo galeen ayaga iska soo galeen arrin qarsoodi ama anaga parliamentarian ahaan annaga go'aansanay inaan UN inaan ka dhigno markii dambe waxaan isgarab dhignay iyadoo on caalamka dhan ka imaanayaan United Nations ka hoos tagayaan wadamada dariska aanan ku jirin hatta logistic aysan ku imaan karin qodob u ahaa qodob kalena wuxuu ahaa ciidamadu inay caalamka dhan ka imaanayaan UN-ka ay hoos tagayaan logisticana wadamada dariska logisticada loo soo marin karo labada qodob baa loo codeeyay waxa codkiisa batay midka logisticada wadamada dariska la soo maray marka wixii uu baarlamaanka tiradii meeshii u badatay marka aniga inaan go'aamiyo sheegaa la iga rabaa marka anigu markaas kii codka batay baan sheegay isfaaysiga xoreynta Soomaaliyeed hal sano aan gaar waxaa dhexdiisa waxaa ku yimid khilaaf siiba madaxa sare basiskiisu sarkiisu asaaskiisu khilaafka cali oo kaftan haddaan ku daro aniga waxaan qabaa madaxa sare way isla socotaa horta aniga taas fikirkaas waa kaga gedisanaa laakiin xibno khilaafkeena waa jiraan oo welibana dad magacyo leh oo qiimo iyo maamuusba dadka Soomaaliyeed caalamkaba ku leh oo arrinkaa ka hor yimid waa jiraan sabab kasta u arkaan marka anigu sidee wax u dhacayna waxaan u arkaa waxa waaye dadna waxay leeyihiin annaga dagaalka aan wadno keliya ay taagiin qeyb aniga aan ka mid ahayn aniga waxaan leenahay dagaalkuna ha socdo wada hadalku diblomaasiyaddana ha la galo annaga Itoobiya dalkeena inay soo gasho caalamku way soo qancisay markay soo qancisay bay soo gashay dad badan oo Soomaaliya waxay ku leeyihiin caalamku uu khiyaanayaa oo dadkan anaga wala soo qanciyay mooga caalamka anaga nama necbana caalamkan ka midna marka annagana inaan qancino caalamka oo aan niraahno wax nagala sheegaa ma aha anaga waxa saanahay baa nagala rabaa marka in labada la isdhex geliyo iyo dagaalka kaliya aan wadno wadalka aan joojino ba horta arrinta la isku hay taas waa laakiin mabda guud haddana saas ay tahay taxaalufku khilaafka ugu roon hadduu khilaaf jiro oo Soomaali khilaaf kale ana waxaan aaminsanahay khilaafka anagu nagu jiro midka ugu roon waa sababtoo ah annaga ilaa hadda mabda iyaga labada dhinacba waa hal dalka Itoobiya laga saaro waxaan ahayn oo anaga aan aaminsanahay labada dhinac ma jiraan walaalaheena kuma eedeynayo ayaga inkastoo ay waxyaalo kale nagu sheegaan aniga hadda wax kuma sheegay aragtidooda un baan u arkaa ayagana waxay leeyihiin dalka Itoobiya laga saaro Itoobiya xoogay ku timid waxaan xoogayn kuma baxayso annagana waxaan leenahay Itoobiya dalka xoog laga saaro haddii xoog ku baxaysan xoog haddii hadal ku baxaysan hadal Yeah.